waxaa maanta magaalada Markay xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si rasmi ah ugu soo gabagaboobay qaadista imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiga sare kaas oo toddobaadkan ay u fariisteen arday kor u dhaafaysa ilaa 530 arday. Ardaydan oo ka kala yimid degmada Kurtuwaarey, Boolamareer, Shalambood, Galweyn iyo magaalada Markay oo imtixaanka lagu qaadayay ayaa maanta si rasmi ah loogu soo xiray gudaha magaalada Markay xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Maamulka degmada Markay xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa u soo xiray ardaydan imtixaanka u fariistay toddobaadkan. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardayda waxa ayna sheegeen inay rajeynayaan in ay natiijo wanaagsan helaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Anigoo Cabduqaadir Cali Cumar kana socda iskuulka marka maanta kana mid ah ardayda imtixaanka u fariista imtixaan dawliga ah. inkastoo aan nahay ardayda gobolka Shabeellada Hoose ku dhawaad muddo 10 sano ah ma aanan galin imtixaan la yiraahdo dawladeed. maanta aad ayaan u faraxsanahay, dareenkeena aad ayuu u sareeyaa. waxaana taas maadaas leh Allah, maada ku xigtan waxa iska leh wasaaradda waxbarashada, tan ku sii xigna waxa iska leh gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Marka. Teeda kale dawladda waxaan ka codsanayeen in imtixaankani uu soo dhaxgalay cudur, inkastoo cashirooyin badan ay naga baaqdeen, inkastoo imtixaankan lagu keenay waxyaabo jabtirooyin badan oo anaga aanan qaadanin. jabtirooyinkaasna wayna ku badnaayeen. dawladda waxaa ka codsanayeen haddaan nahay ardayda gobolka Shabeellada Hoose in wax ay ka qabtaan arrintaasi, inkastoo aanan wax badan aan qaadan. magacaygu waa Saabrin Xaad Suufi, waxaan ka socdaa dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Imra Primary and Secondary School. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in aan galno imtixaanka dawladda muddo 30 sano kadib. waxaan halkan ugu mahadcelinaa dhammaan gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha waxbarashada, dhammaan bahda amniga, dhammaan saraakiilayaasha ku xigeenka oo amnigan si wanaagsan ugu sugay. maanta waxaa halkan ku soo gabagaboway imtixaanka shahaadiga. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay kormeerayaal ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo imtixaanka indhaha ku hayay. waxa ay sheegeen in si wanaagsan uu dhacay imtixaanka, iyadoo dhanka kalena uu goobta ka hadlay agaasimaha waxbarashada degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose, Cabdixakiin Cabduw Siidow. waxa ay sheegeen in si wanaagsan loo qaaday imtixaanka dawliga ah ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ahmad Balaaran iskale Aliina abuurtay oo noo soo geliyay inuu imtixaanka maanta nagu dhamaado si nabadgelyo oo barwaaqo leh oo wax ka dhan jirin ama wax kala dhan jirin. waxaa maar labaad aan sii jeedinaynaa dadkii ka dambeeyay sida wasiirka waxbarashada, wasiirka diinta oo qaafka, xildhibaanadii, xildhibaan Aamino, Senator Hussein, xildhibaan Cabdalla, dhammaantood iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Najax, dadkii imtixaanka noo keenay oo halkaan noo keenay oo suurageliyay in imtixaanka meesha uu tago. anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada, magaca wasiirka, magaca wasiir ku-xigeenka, wasiirka dawlaha, agaasimaha guud iyo dhammaan bahda waxbarashada oo ay ka mid yihiin ardayda sharafta leh. anoo ku hadlaya magacooda waxaan idinkaga mahadcelinayaa jaalle gudoomiye iyo maamulka Marka. waxaan uga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo quruxda iyo sharafta faraha badnayd oo aad nagu soo dhaweyseen oo aad nagala qayb gasheen imtixaankii koowaad. gabagabadii waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyo gudoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. waxay si isku mid ah ay guul ugu rajeeyeen dhammaan ardaydii maanta sida tooska ah loogu soo xiray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ee fasalka 12aad. waxa ay markaasi u rajeeyeen in ay kaalimaha koowaad ay galaan. waxaa lagu soo hadal qaaday oo lagu soo daray scholarship. degmada Marka gudaheeda waxaa ka jiro jaamacado oo 3 ah oo jaamacadda ay ka u horeyso Balaasma, ay ku xigto Safaana, ay ku xigto Baraabo. waxa idinka ballan qaadaa anigoo ah Cabdullaahi Nuur Cali Shaacir oo maanta ka socdo ka wakiilna ka ah gudoomiyaha degmada Marka laga soo tago arrimaha bulshada. ciddii kaalmo ku guulaysato in aan 3daas jaamacadood aan geyno, koowaad iyo labaad iyo 3aad, inta kalena qiimo macquul aan ugu qaadano. ciddii ku guulaysato kaalanta koowaad waxaan geynaynaa waxbarasho lacag la'aan ah oo degmada gudaheeda aan ugu ballan qaadaa. ciddii kaalanta labaad soo gashay weli waxaan siinaynaa lacag la'aan aan siinaynaa.
kaalinta saddexaad qiimo macquul leh aan jaamacadaha uga codsanaynaa ardayda ee imtixaanka fadhiistay inaan idinkaga mahadceliyo sida wanaagsaneedii oo aad la daaldhacdeen imtixaankii aad u fadhiisateen si rabsho la'aan ah si deganaan ah macallimiintii iyo kormeerayaashii wax idin baraayay ama idin hortaagnaayey adinkoo aad dhiban imtixaanka inaad dhammaysateen aad iyo aad ayaa idinkaga mahadnaqaa sidoo kale macallimiinta raba inaan u mahadceliyo oo dul taagnaay imtixaankaasaytu muxuu qaadistaankiisii waa idinkaga mahadceliyaa adinkan dadaalkii dheeraa aad geliseen sidoo